runta ma kuu sheegaa cilaankan aniga ii saaran shayaadiina ii saaro aniga maba ogiba gooray ii saaraan waayo aniga jinniyaha igu jira mar walba wuxuu tabaa in aan cilaankii ka shaqeeyo oo cilaan iyo wax ku saabsan aan faraha kula jiro marka ayagii aad diidano saasay cilaan iigu saareen aasuu yiriyaa anaa warkaa iga dhaadhaceemiya aasay tiri hadday sheekada saan kusii socotana adiga xataa lugahaaga iyo gacmahaaga inaa cilaan ku aragtidaa dhici karta aasuu yiri maaniga nin ah aa lugahaygii gacmahayga cilaan ku arkaa nacamay tiri xabiibi is ilaaliyay tiri isjir aniga shayaandiinta igu jirto kuwo lagu saqajaama maahan afaarahoodana ha gelin waana ka macquul in adiga laftirkaaga ay cilaan kuu saaraan halkaa uu ku jiraahe anaa igu ogtaa waayahay aw ninkii marba war uma hayday inta la fasaxay oo gurigii shaqaale la geliyey kaamira meel walba daba iyo dacal aa lagu dhajiyey aw ninkan habeenkii markuu iska seexday subaxii wuxuu soo kacay asagoo cilaan uu dee u saaran yahay asagoo cilaan uu u saaran yahay yaab wuxuu is yiri alla ilahe kaamiradii waa inaan fiiriyo kabash dhinacii kaamirada kombyuutarkiisi adduunkiisii kala furtayaa balaayo kugu dhacda ana iga dhaadhacey miyaa shaydaana kuu saara maanta balaayo lugaheeda ugu soo gasha maantaan sirteeda ogaaha haddayna kaamiradan fashilin kaamiradii wac hadduu kala siiyo waaba naagtaanoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنالكيغ ايان قوب دونا مركا ليس كسو نقود وناكسن iyo muuqaalka la cusub fadlan hadaa igu cusub tahay soo dhawow subscribe isaar ka mid noqo asxaabtayda dawr ila joogtana muuqaalkan like isaar waana mahadsantihiin dhamaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walba aad joogtiin waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirta channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qiso kale cusub asxaabtayda quruxda badan maadaama aan idin dhahay channelkan waa ka day doonaa qisooyinka Soomaalida والله قصوين بدن أو صومالي هايا أو نوع بالنوع بلسه لبدأ بري أيان مشغولي حوجا مالنا وان إسكير حنوسنا هدو إلهي سبحانه وتعالى ما يدهن بريتو أيان channel كي يركب بلابدونا قصص channel جبي أهم با وحي قصص صومالية إن شاء الله بإذن الله هالكاس أيان إن كوسو قد بنا ويدا ذكرت عمرك قارب بريفة إن قصة عربي كوسو تورو لكن جبي أهم channel كان وين وأن كدي دونا قصوين كصومالي هذا ومهسنتين وحنس كود داري دونا مركي كتم بسوق قصة كحيسة بدن تاعي إن إذن السوشيال جريو أما أن إذن صو دياريو هدو إلهي سبحانه وتعالى كرها لنقضه قصة أنا ما أنت وإن كيد كنا عظيم هدي ناجي أي نجر مليكتو قف كيدون تبه مليكتي ilaa intee ayuu shaydaanku gaarsii karaa ama ay ayada dhagarteeda gaarsii kartaa inay ku fakarto soo qisadaas ayaan rabaa inaan maanta nooga sheekeeyo qisadani waxay ku socotaa ama ay ku dhacday gabar yar oo lagu magacaabo Marwa qisadeedu waxa ay bilaabatay 2018 waxa ayna ka soo jeedaa dalka Masar waxay ahayd gabar yar oo la nooleed hooyadeed iyo aabaheed waxayna ku noolaayeen xaafadaha shacbiga ah ama dadka aan hantida lahayn iska adugu fuqarada camal ah ay ku noolaayeen waalidkeed waxay iska ahaayeen laba qof oo subaxii risaq raadsada xiliyada habeenkiina soo foofo guriga imaado ayaduna waxay iska ahayd iska guri joogto wuxuu waqtigu ayuu socdo maalmaha kamid ah ayadoo noloshoodii dabiiciga u socoto ayaa mar qura waxa loo sheegay Marwo hooyadeed iyo aabaheedba in ay geeriyoodeen kabacdi halkii ayaa tacsi lagu dhigay dan nolosheedii waxa la wareegay xabar yarteed Marwo markaan hooyadeed iyo aabaheed ay dhimanayaan aad ay u da'yar tahay bacdeen markii la isweydiiyay adeerayaasheed waxay dhaheen anagu gabadhan shaqo kuma lihin mana aan hay karno nin walbana naagu qabaa xabar yarteed ayaa marka shafka u garaacatay oo tiri aniga ayaa gabadhayda xiisanayo maadaama walaashay ay geeriyootay sidii ayaana noloshii halka uga bilaabatay wuxuu waqtigu ayuu isguraba gabadhii waa ay soo barbaartay gabadhan mar alaale ee markii habaryarteed marka la wareegaysay isla markiiba waxay bartay xinaha waayo habaryartu waxay ku shaqaysan jirtay in
goboladoo kale aada masar looga yaqaanaa in la xinaysto dee arooska sida anaga Soomaali ahaan aan u xinaysano cilaan u marsano in ayaguna ay u marsadaan goboladooda si fiican looga yaqaan laakiin magaalada ama magaalooyinka waa ay yartahay gabadha markii ay nolosheedii la wareegtaba ay adigu 8 sano dhaaftay 10 sano 10 iyo dhowr sano ay gaartay ayaa habriirtii waxay bilowday maadaama ay lahayd meel koofeer ah oo qaybna gabadhan gabadhan yaa dhihina maamadan wiilkeeda waxa uga furan hadii rag caruus yihiin macna aroos yihiin iyo hadii caadi yihiinba balbiyeeri anaga Soomaali ahaan dhahnaa timaha ragga qaabka loogu hagaajiyo ama meesha timaha raggu ay ka hagaajistaan dhinaca kale ee ganacsiga maamadan uga furan koofeerka asna saasoo kale koofeer oo rag uga furan wiilkeeda iyo ayadu marka sida ay iskula shaqeystaan oo nolosha ay ku dabaraan gabadhan marka abeenadii ay istiriba dee markan waa gabar weyn oo wax loo dirsan karo ayay waxay bilowday maadaama aysan gabadhu waxba baran in calal aqal ay tiraado gabadhaydii waxaan ku barayaa xinaha in ay dadkii shaqaalaha markaas meesha uga shaqeynayay ay tiri gabadhan iyo tababara si birito ay ugu shaqeysato shaqadan hooyo uma noolo aaba uma noolo adeerayaasheedna dee wayaga ka fara taagtay oo dhaheen anagu shaqo kuma lihine gabadhii ayadoo yaray marka waxay ku soo saanqaaday in carabtu aad waxay u yaqaaniin xaadoo kale aaday u fiiqaan ma arkaysid gabar masaari ama hooyo masriyad oo wajigeeda uu xaad ku yaalo ma arkaysid aniga hadda markii aan dee wadanka ku cusbaa waxyaabihii aan inta ka arkay aan isaga dhaqmi jiray laakiin diiniyan aan xoogaa yareysanay mar dambe si aan aad uga baqay waxa kamid sunniyahoo kale يعني دينتا أي وقديرسة إن دمر كسونيا أي حيران وإنت لقى سوق قبت الله حيرو سو مركا أيجا عادي أكتود عادي كتاءات مش يجنكو أهل الدين كأ لكن عادة مركي لفيريو مصر مساردو سنيها إيه حاد إيو أي وقت وقليان وأنا دف نفتوذ وتشعلو ما أنت الإسناش ناشايو لكن دينتا كودي ده إسكدا حقا يعني هالكاس ما كفيعنا أذو يعني ور إني كدالين هنا قبل وحالة بري سيدا سنيها الله هبايو تنت سيدا الله هبايو اجيوهو كالي لغوهو كالي مركي داد اولاقايدو كالي شاقدي كوفيركا كسعتي او دان اي قبل براتي أبينادي أي دور إيو يعني 19 سنة 18 سنة أبينادي أي سو قارتبه gabadhaanoo isku filan oo shaqaalihiiba dhinac ayaduna ka oo habaryartaani lacag siiso aaba waagi ugu bariyaba kaal arag habaryartii waa ku mahadiyo waxay tir gabadhaydii waa kaasaa dee kumaadan qasaarino maanta dhinacaagiyaad shaqaale ka too lacagtaad shabshabsanee soo markaa waxaa dhacday gabdha badan oo meesha ka shaqeynayay oo ka imaadeen gobollo kale oo gabadhii waxay aragtay mar waa la guursaday ayada meesha ku dhagana yani ganacsigiisu rag badan imaanay Soomaha waa balbiyeeri ama meesha timaha lagu habaysto gabadha nin hoo diiraahdo oo damco maba jiraba gabadhi waayaat markay tankii lugta saalis u sii galayso oo ay guur u baahan tahay ay waxay tiriyaa oo nin hoodi isoo dhahayo oo garoortaada meeqa waa idhaayaba ma jiree arwalaalayaalo sidee wax u jiraan gabadhi marka waaga ku bari arxaalku waa sidee waxoodi idhaayaba ma lehe wax isoo damcaayaba ma lehe see wax u jiraan camal ay istiri bacdeen waxay fakartaba waxay tiri lacala in wili waqtigii haysatido wili inuu calafkaagii dhiman yahay iska sug sanadkan sug sanadkiis kale sug 30 sano ee xirte ileen gabadhan habaryarteed iyo wiilka habaryarteed ee dhashay iyo cimaarada ama buildingka ay degan yihiinba waa dad ileen darisku waxa la yiri ilaala aan lagu dirsan waaye aqsan naas lagu tilmaamaa habaryartu nimanka naagaha saa isugu dhex jiraan nin walba marka gabadhan sheedu ka fiiriyaa hatta haduu soo barto
ileen kadib waa lis wareysanaa gabadhaasaan soo barta hooyo abbaay gabadhaasaan soo barta intay ka soo jeedaa islaanta koofeerka habaryar u ah islaantaasaa ayadoo agoonoo rajaa soo korsatay nin walba dibuu u degaa gabadhii warkiiyaa soo gaaray ileen dariskii o dhan waxay leeyihin 30 sanaa gaarte gabar saan u qurux badan gabadhuna waa gabar qurux badan macaadalaahi gabar koofeer ka shaqaynaysa martinteeda ku mashquulaysa hadda ayaguna gabdhaha markay waaweynaadaan ama ayagoo waaweyn ilaa la guursado caadi ay agtooda ka tahee qayb ka mid ahaa markii nin uu guursado marwe ay noqoto gabdhaha masaarida asturtaan laakiin qaybo kale waxayba aaminsan yihiin I don't care soo marka gabadhan dee gabar isnaashnaashayso koofeer ka shaqaydo maalinba nuuc wejigeeda ka dhigaydo haddana aan garoortaada meeqa waa la dhahayn see waayay tiri xaalka markii dambe dariskii u warrame fiiraal dhahiblaayo 30 sano waxaa u gaartay oo nin hoodi kusoo dhaho aa u weysantaa ma fahansantaasay tirmay naa habaryartaadan aqsanaaska ee dadka ugu xun ah ee saqajaamada ah ee nimanka iyo naagaha gurigeeda ku shirido oo 90 gurigeeda saa rag iyo dumarba isku dhex yaacayaan in habaryartaas ay habaryar ku tahay raggiyoo dhan ogaadeen cimrigaad ku dhammaysanee meeshaan maahane yaa marwoy nin ku soo doonanaya oo adig ku soo damaacinaya saaxiib inuusan lahayn kuna seexo kuna soo toos gabadhi waagaa ku bariye habaryarteedna way og tahay inay akhlaaq daran tahay inay ragga iyo dumarku saa gurigeeda ugu tuntaan ilaan qofku markuu dee gabar guursanayo waa inuu ehelkeeda iyo dadka ay kasoo jeeda fiiriyaaye waxay tirisaan xal iima aha anigu ma guumaysaa noqaa anigu guur baan u baahanahe waa in aan meesha ka tafaxeetaayo aan bartaanoo ka dhanka tagaa habaryarteeday wax ku meermeeriday kabacdi meeshii o dhan isaga tagtay magaalo kale ama gobol kale ayay tagtay ayagu waa gobol marka meeshii kasoo jeedeen ayay tagtay meeshii gabadhii hadday tagtay gabar qurux badanoo cusuboo islaan kaleoo marka habaryar ugu aadan ay u tagtayo halkiiaa nolol uga bilaabatayoo nin walbo gabadhiiu damcaa waa fiiriyaa ilaa aqiiran ninay si dhiiba isku barteen warbal iyo waran ragyaaba isku tumaayaba gabadhii shidka garaacaysa oo albaabkeeda cid soo gala la weysanaa aaba magaaladii cusbeed ma tagtay allah gabar cusubaa gobolkan soo gashay allah nin walba ayadiioo tartan u galaa gabar qurux badanoo jalaqsan oo kaala araga ilaa aqiiran raggiisa xulayso unbay mid dhiin kala baxde hadday kii kala baxde waa la sheekaystay nin wuxuu u noqday gacan furan saa 90 wax walba hadiyada ugu keeno ilaa markii dambe waa ay isquduubteen hadday isquduubteen habaryaashii midiida ay la joogtay aa laga soo doontay waa la bixiyey wuu u faraantigeliyey mudday isku quduubsanaayeen wuxuu yiri markay noloshu isugu kay toosto dee waa aan soo shaqaysanayaaye yaa oo xaalku uu ii noqdo dhagdhag ayaan walaalay gacaliso dee ani iyo adiga nolol ay noo bilaabane waa ihay tiri bacdeen nin waxay heshay nasiibkeeda intuu u soo shaqaystay yiri ahlan wasahlan waa xilligii ani adigu aan aqal gali lahayn carabtu marka waxay yaqaaneen in badanna waa idinkaga sheekeeyey annaga ka Soomaali ahaan aanan aqoonin qaasatan gabdhaha masaarida qasaalada talaajada burtugaaska kan mugurweefka cuntada loo kululeysto kulli qolka ilmaha gabadha laga rabaa dhaqan ahaan sidoo kale waxay yaqaaniin qolka ilmaha maalinkay isguursadaan ayaa la sharaxaa lambar 1 inay caqiim noqon doonaan ayaga maa og in aysan ilmo yacni ayaga kaliya waaba ka dhaqan qolkaas ilmaha 2 sariiraa la dhigaa daahiisaa lagu xiraa waa la taagaa caanug aanan weli calool gelin aaba qolka loo sii taagaa gabadhan hayuu yiri ani intaanan keenee adna intaan diyaar ma la tahay habaryaasheeda caawiyeen ayadu dee intii ay singalka ahayd lacag ay aruusa jirtay waa kan ay tiri xabiibi ana inteydii waa wataa nimanka qaar marka maaha ragga masaaridoo dhan kuwo waxaa ku jiro gabadha yiraahdo fargeeta xataa kaama rabo wax walba guriga asaga dhigto adigu bacdeen gabadhii dhinaceedii gurigii kasoo buuxsatay guri edab daran oo kaala araga ayay sharaxatay ninkan markaa waxay ka dalbatay in ay degto gobolkii habaryarteed ay kasoo jeeday gobolkii
ay habaryarteed ka soo jeeda ay tiriniyo idaji kamuusan diidina waa ka ogolaaday aroos qurux badan oo mashriq iyo maqrib la isaga yimid uu gabadhii u dhigay shahrul casalkii mar alaale iyo markii ay ka baxeen uu gobolkii soo dejiyey gabadhii gurigeedii dhabdhahde reerkeedii dhaqate markay alla ilahay ninkeedii uu bilaabay inuu shaqo aado ay maalin alla keeno way baxdaa maalin alla keeno waxay u dhuumanee meeshii cilaanka ay ku saari jirta dadka qaaraa xataa nolol hadday kasoo baxaan yacni nolol hadday kasoo baxaan dhibaataa laga yaabo hadday nolol haaya galaan inay noloshii dhibaatada u xiisaan waa naag biilkeeda iyo baatigeeda iyo wax walba laisku dul saarayo habaryartii u tagtaa 90 habaryartii marka waxay bilowday ayaduna inay gabadhan u imaato markay u imaahaydo wiilkan oo ay ayadu dhashay habaryarta waa uu la socdaa ninkii dhowr mar uu marka dadkan ugu yimid guriga iyo ninkan ajnabiga carabtuna waa mamnuuc in adeerkay waa in abtigay waa islaanta oo maxaa la dhahaa ii sheeg eedada iigu aadanaa dhashi wax la dhaho ma yaqaanin fiiriyo yidhi xaaskiisii inta la fariista abaayo islaantan daqdaqayskeeda owalaan ka yaabee ayadu wax maba iga dhibtee ninkan rijaalka ah ee ajnabiga ka ah ee gurigayga imaanayo maxaa waa ii sheegi kartaa ninkan ma aragtee ninkan waxa waaye habaryartaya dhash fiiriyo dhahay ninkan waa kaa ajnabi bataatan aniga ma ogoli marka walaalow macaanow walaalay macaani aslanba ninkan mar dambe gurigayga ma soo geli kartid waayahay tiri sidii u jarte ayadiyaa waxay bilowday in ay u dhuudhuumato ninkeediyaa markaan shaqadii xoogaa ay ka daciiftay markay shaqadii ka daciiftay ee tiri xabiibi ma adigaaba war og adiga hadda shaqadaadii hay ma aha say awal kuu ahaa jirta ma ahan yaa xabiibi albi waxaan rabaa in maxaa la dhahaaye aan dee meel laga yaabo haddii hal maalin oo kale aroos oo kale uu igu soo aado inaan lacag fooqal aqliya aan kasoo qaatee aan aado meeshii habaryartay ee cilaanka ku saarays maalinkii koowaad wuu ka aqbale maalinkii labaad wuu ka aqbale adigu muddo markay aadayda asagii shaqadiisa u fiicnaat kadib wuxuu yidhi fiiri i dhagayso walaalay gacaliso aniga hadda waa isku filanahay shalay hadda ay caawinaysa waa mahadsan tahay maanta nin biil iyo baati ku sii karaan ahee gurigaaga ii fadhi naagi waxay sharaf ku leedahay inay gurigeeda fadhiso marwo dhaqmaysa noqo gurigan ii fadhi waayahay ku tiri ha ku tiraahdo ma xumee ileen sida tuuga uu u barto inuu 90 uun waxaa la yidhi tuuga gacanta haddii laga gooyo gurmadkaa dhaqdhaqaaqee 90 uun gabadhaani waa ay baxdaa ninkeeda waa ka dhuumataa ninkii wuxuu arkaa marka gabadhan oo cilaan u saaran yahay waa sawirka samneelka aad ku arkaysiine oo cilaan u saaran yahay fiiriyu dhahaa maanta ma islaantiya aad maya intee ka aade cilaankan kuu saaran maxaa waaye cilaankan ii saaran xala markaa hurdaysaa marsade cilaankan ii saaran adaan i arage saaka markaa shaqada aadaysa aan marsade haddana waxay ugu sii dartay 9 telefoonay ku dhegantaha naa taleefonkan iska dhig naa margo dhaqmaysa noqo adaaba sheegaysid bacdeen ninkii waa yaabe wuxuu is yidhi gabadhan waa baxdaa aday kaa qanee ma ogiye haddaysan bixin cilaankan u saaran yaa u saare maalinkii dambe inta ku celceli ee tiri fiiri runta ma kuu sheegaa cilaankan aniga ii saaran shayaadiina ii saaro aniga maba ogiba gooray ii saaraan waayo aniga jinniyaha igu jira mar walba wuxuu tabaa in aan cilaankii ka shaqeeyo oo cilaan iyo wax ku saabsan aan faraha kula jiro marka ayagii aad diidano saasay cilaan iigu saareen aasuu yiriyaa anaa warkaa iga dhaadhaceemiya aasay tiri hadday sheekada saan ku sii socotana adiga xataa lugahaaga iyo gacmahaaga inaa cilaan ku aragtidaa dhici karta aasuu yiri maaniga nin ah aa lugahaygii gacmahayga cilaan ku arkaa nacamay tiri xabiibi is ilaaliyay tiri isjir aniga shayaan diinta igu jirto kuwo lagu saqajaama maahan afaarahoodana ha gelin waana ka macquul in adiga laftirkaaga ay cilaan kuu saaraan waa arkaynaahu yiri aniga kaaliyu yiri horta naanima ciyaala ii malaysuu yiri anaa waxaas iga dhaadhaceemaya cilaanaa lagu saaraa gacmahaaga iyo lugahaaga cilaan leh
صبحي سوكعي نايا أنا عيال مئه بعدين وحيت على أي حال أما إآمن أما هي آمنين cilaanka haddaad arki weysid sida ani la iigu saaray in adigana aajirkaaga ugu aragtid marwaba iga bedel waayahoo yiri quraafaadka iyo waxa aad la wareegaysid waa aan arki doonaa haddii kale waxay tiri xaaji ani meeshaas cilaan saarka nafteydii jinniyahaygaa jecele ii fasaxnaa kuu fasaxi maayo bal aan arkoo yiri cilaan korkayga la saaro bacdeen habeenada kamid ay seexdeen hadday habeenada kamida seexdeen ninkiioo waxaa soo kacay gacmihii iyo lugihii cilaan buufis uu saaran yahay fajac hayay tiri maxaan ku dhahay markaad iyo sayd oo shayaadiinta igu jirta iyo sayd oo shayaadiinta ila shaqeeyay iyo sayd hadda indhahaaga ma ku aragta waa kanaaye cilaanka maanaa kuu saaray maanaa lugahaaga iyo gacmahaaga adoo hurdaydid cilaan saari karo ninkii waa yaab macquul ma aha waa run iima saari karta qalqal cabsi a ku beermate kabacdi subaxii asagoo yaaban oo cilaankii lugihii gacmihii u saaran yihiin oo taqriiban ilaa ay ka dhaqmo uu gabadhii guriga u fadhiyey aasay tiri waxaan kaa celinayo mixrada salkeeda isu yiri balaayo naaheed hadda sideen shaqa ku aada lugihii waxaa ii saaran cilaan gacmihii waxaa ii saaran cilaan ani naag maan ahay mise nin sidee shaqa ku aada ilaa uu kaa dhaqmay tiri iska fadhi 7 beri markuu kaa dhaqmo ama 8 beri ama 2 wiig dee markaas albaabku waa kuu furan yaha hooyo calaa ay taxaal waxay tirniyaho waa kugu dhacde waxaa yeestidba balaa iska dhigtidba soo maanta adoo lugay iyo gacmihii xirno ku leh guriga iima dhex fadhisid fadhiyay tiri allah yaa noo soo shaqaynaa aniga shaqadayda shaqa maalmeeday aheyd anaa noo soo shaqayhayay tiri adiga soo kaama kari weynin aan shaqadayda iska aado xinahayga iska aado fadhiyay tiri guriga anaa noo shaqayhaye feeraweynayo jaf ha tiraahe meesha lay aadaa waa sii socotaa 2 wiig markuu ka dhaqmay asagii shaqa u bilaabatay inta kale guriga ayadaa biilaysa bacdeen ninkan waa fakere wuxuu yiri saan macquul ma ahee waxaa la yiri aqli kaa maqan maan walaalkaahu ku jiraaye naagtan si asirteeda u fahantid waa inaad dad tala weydiisaa oo dad arintan la sheer garaysaa maybe inay fikrad yaa ay kugu kordhiyaan oo waxaan ay sheegaysaba ay been yihiin bacdeen nin sheekh ah uu u tagay sheekadii u sheegay ninkii yaa wuxuu yiri sharta ka cuudi billaah waxaas wax dhici kara maahan adoo hurdayda shaydaan cilaan lagaa iyo gacmaha kuu mariye wari dhageysuu yiri naagtaada يعني شكي أما تهون وح ما جرا نعم ويري ساقا الشك تلفوني يكون جنتها ميل ميشاسو هبريرتيد حنو ضدك وقصو بدنا وكريب لا أحد أنا تلقوها يويري gurigaaga waxa ka dhacay intaad maqan tahay iyo inta habeenkii oo dhan ina ogaad soo martidaa naagta maalmaha kamida orodoo xinahaaga aad dheh kaamira soo iibso guriga daba iyo dacal kaamira uga xiro adaa waxa jiro iyo xaqiiqada iyo biyo dhaceeda ogaa doontide war fiican waayuu yiri allah ilaahay niyaho aqli ka maqan horaa loo yiri maan walaalka uu ku jiraa ana igu ogtaa waayahay aw ninkii marba war uma hayday inta la fasaxay oo gurigii shaqaale la geliyay kaamira meel walba daba iyo dacal lagu dhajiyay aw ninkan habeenkii markuu iska seexday subaxii wuxuu soo kacay asagoo cilaan uu de u saaran yahay asagoo cilaan uu u saaran yahay yaab wuxuu isiri allah ilaahay kaamiradii waa inaan fiiriyo kabash dhinacii kaamirada kombiyuutarkiisa adduunkiisa kala furtayaa balaayo kugu dhacda ana iga dhaadhacay miyaa shaydaana kuu saara maanta balaayo lugaheeda ugu soo gash maantaan sirteeda ogaaha haddayna kaamiradan fashilin kaamiradii wac hadduu kala siiyo waaba naagtaanoo jikada caano inta qastay cashada markay siiday kaniini nab ugu siiday waaba ninkaanoo suuxay ee sarqaamay waaba naagtaanoo telefoon inta la soo baxday habaryarteeda la sheekaysayda oo leh habar yar sarqaankii waa uu hurdaa waa haddana telefoon kale inta dirtay ninkii habaryarteed ay dhashay ay isleeyihiinba iska fur
anaa awalba ku jeclaa anaa ku guursanaa maxaa ku falee haddaa rabti inuu ku furo 9 kale wareeg aqiiran asaa ku furaa kaniinigiina nab markay asaga ku siisay inta saa marka u kala dhacay meed camal uu yahay ay gacmaha iyo lugaha cilaan muf ugu siiday sariirtiisi jaaninka markuuba sii alaalaxaayay ayba ilaan sariirti geyde gacmihii cilaanayn muf ugu siida lugihii muf aw ninkaanow subaxii markuu soo naaxay waaba cilaansan yahay qaracan asagii naagti inta qabsaday uu yidhi balaayo kugu dhacday furiin allaaba baneeye maxaad iigu cilaamayde idhagaysi tiri ma fahantiday tiri bilaa damiir yahow waana aan kugu qaldamay tiri mana aanan ku jeclayn wiilkaas sabriirta ee dhashaan rabaa inaan guursada asuu 2 dhangalaas inta u geliyo dalaaqadeedana wejiga uga garaacay oo yidhi qaado naclatullah cala shaydaan sacoo yidhi naayaa waa iga furantahee kabacdi haddii naagtii uu furay waxaan maqli jiray wax badse wax beelay leedahe kii habaryarteed ay dhashana ma guursan ninkeedina siday ku weyda laakiin maxaa waaye qisada waxaan ka faa'iidayno sir naageed lagama salo gaaro dumarku markaa haddii ay go-aansadaan inay balaayo falkiyaan wax walba ragow meeshaan waa soo indhawey weyntiine waa ay awoodaan ogaada ugu dambeyntiina gabadhii sidiyaa loo furay ninkiina jid cadow ku dhacay ayadina guur ma helin gebi ahaanba qisadii marwo halkaasaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo tan iyo intaan qisadan qisa xig kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa i nabadgelyo asalaamu calaykum